Burkina Faso waa dal dhaca galbeedka Afrika oo xiran maadaama uusan lahayn wax bada, waxaana ku hareeraysan oo uu xal la leeyahay dalalka kala ah Mali, Benin, Togo, Niger, Ivory Coast iyo Ghana. Waa dal dhaca dhul sareeya wuxuuna badkiisa dhuleed yahay wax ka badan 200,000 kiiloomitir isku wareega, waxaana la dhihi jiray waagii gumaystaha Upper Volta. waxaana laga helaa dalkan oo ka soo burqadaan taagagiisa 3 wabi oo lagu magacaabo Black Volta, White Volta iyo Red Volta, waxayna dhammaantood isugu yimaadaan dalka Ghana, waxaana halkaasi ka sameysma wabiga weyn ee Ghana ee isna lagu magacaabo Volta. sidoo kale waxaa xusid mudan 3 wabi ee Burkina Faso iyo wabiga ka sameysma ee Ghana in ay dhammaantooduba ku shumaan ama ku dhamaadaan harada iyadana lagu magacaabo Volta oo dhacda dalka Ghana. waa dalka kooban 45 gobol, waxaana uu caasimad ah magaalada la yiraahdo Ouagadougou, wuxuuna magaca magaaladan macna ahaan yahay halka ay dadka ka helaan sharafta iyo ixtiraamka. dadka dalkan tiro ahaan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 20 milyan, waxaana sida guud loo yaqaanaa dadka ka soo jeeda dalkan magaca Burkinabe. waa dal ay ku nool yihiin qowmiyado badan oo gaaraya 27. qowmiyadda Mosi ayaana ugu tun weyn qowmiyadaha dalkan, waxayna bulshada dalkan ka tahay 50%. intooda badanna waa muslimiin, xitaa sida guud dadka dalkan 60% waa muslimiin. ka hor gumaystihii waxaa Burkina Faso xukumaysay qowmiyadda Mosi, taasoo dhulka dalkan soo gaartay qarnigii 11aad, waxayna boqortooyooyinkii kala duwanaa ee qowmiyaddan ay dalkan xukumayeen ilaa dhammaadkii qarnigii 20aad. marka ay dadka la yiraahdo Mosi ay yimaadeen dhulkan, waxay ku magacaabeen dhulkii Mogho ama dalkii Mosi, waxayna sidoo kale ka aasaaseen 5 boqortooyo oo kala madax banaanaa. nidaamyadii qowmiyadda Mosi waxay aad u difaaci jireen dhaqanka iyo waxyaabaha ay aaminsanaayeen, waxayna ka foojignaayeen saameynta dibadda, gaar ahaan muslimiinta iyo waqooyiga Afrika. haddaba arrinkan wuxuu isbedelay kadib markii ay irdaha u fureen ganacsiga, gaar ahaan dahabka iyo cusbada, waxayna tani fursad siisay ganacsatadii muslimiinta kuwaasoo ugu dambeyn saldhigay isla markaana guursadeen haweenkii ku noolaa dhulkan. intaa kadib muslimiinta waxaa loo tixgeliyey inay ka mid yihiin boqortooyada Mosi, waxayna diinta Islaamka si xooliya ugu faaftay mandiqada uu gumaystihii Faransiiska u yaqaanay Upper Volta. 5tii boqortooyo ee qowmiyadda Mosi waxay hoos tageen oo qabsaday Faransiiska sanadkii 1896. haddaba 1919 waxay Upper Volta noqotay mid ka soocan maamuladii Faransiiska ee Afrika, wuxuuna ugu dambeyn dalkan helay madax banaanidiisa 1960. weli raadkii Faransiiska ayaa ka muuqda Burkina Faso, oo luuqadda rasmiga ah ee dalkan waa luuqadda Faransiiska oo loo adeegsado dhanka maamulka, siyaasadda, adeegyada guud iyo xitaa warbaahinta. ma ahan luuqadda kaliya ee dalkan lagaga hadlo, oo waxaa ka jiraan 66 luuqadood oo wadaniya, waxaana ugu muhiimsan luuqadda Mosi iyo luuqadda kale ee lagu magacaabo Mande. haddaan dhanka siyaasadda ama maamulka eegnana, dalkan waa mid martigeliyey afgambiyo iyo qallalaasooyin siyaasadeed, waxaana madaxweynihii ugu horeeyay ka noqday dalkan Maurice Yameogo oo ay militarigu afgambiyeen 1966. haddaba madaxdii kala duwaneed ee dalkan soo martay waxaa ugu caansan Afrika iyo caalamkana si weyn looga yaqaanaa madaxweynihii hore ee dalkan Thomas Sankara. Sankara waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa halyey Afrikaan ah oo la dagaalamay musuqmaasuqa, asigoona hirgeliyey siyaasado uu kaga hortagayo hanti urursiga. afgambi ka dhacay dalkan ayuu madaxweyne ku noqday Thomas Sankara 4 August 1983, markaasoo ay da'diisu ahayd 33 jir, wuxuuna 1984 bedelay magaca dalkan ee Faransiisku u bixiyey ee ahaa Upper Volta, wuxuuna ku bedelay magaca haatan loo yaqaano dalkan ee ah Burkina Faso, wuxuuna macna ahaan yahay magaca dalkan dhulka dadka sharafta leh. sidoo kale Sankara wuxuu bedelay ama nashqadeeyay calanka Burkina Faso, asigoona xitaa qoray heesta astaanta qaranka ee Burkina Faso ee magaceedu yahay Nsunowi. wuxuu ku dhiiraday inuu diido deymihii lagu lahaa dalkiisa, asigoona ku tilmaami jiray gargaarka dibadda looga keeno Afrika inuu yahay gumaysiga cusub. ma uusan isticmaali jirin waxyaabaha qaaliga ah ee madaxdu haystaan, xitaa xafiiskiisa ma uusan lahayn mukeyf ama air condition. waxaana sidoo kale xusid mudan inuu xubnaha dowladda u soo jeediyey inay qaataan baabuurta aan qaaliga ahayn, wuxuuna sameeyey mushaar dhimis uu naftiisa ka bilaabay. dhinacyada uu ahmiyadda siiyey waxaa ka mid ah waxbarashada, caafimaadka, in dumarka la dhiirigeliyo,
iyo kor u qaadidda wax soo saarka beeraha, wuxuuna hogaamin jiray barnaamij dhir-beerid ah si looga hortago xaalufka. Waxaana inta uusan xukunka imaan gaar ahaan 70-meeyadii ku dhufatay dalkan abaar daran oo galaafatay 1973 oo keliya 100,000 oo ruux. Haddaba halyeygan tusaalaha u ahaa dhalinyaro badan oo Afrikaan ah waxaa la qaarijiyey asigoo 37 jir ah 15 Oktoobar 1987. Dilkiisa waxaa soo abaabulay saaxiibkiis Blaise Compaoré oo la wareegay jagada madaxweynenimada dalkan, wuxuuna dalkan ka talinayay 27 sano asigoona ka shaqeeyay kuna dadaalay sidii uu u tirtiri lahaa raadkii iyo kacdoonkii Sankara. Ugu dambeynse waxaa ku kaceen dadkii kacdoonkaasi aaminsanaa, wuxuuna dalka ka baxsaday sanadkii 2014. Sida uu Bangiga Adduunka sheegayo, dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka dhaca mandiqada saaxilka ee dakhligoodu hooseeyo, isla markaana uu xadidan yahay kheyraadkooda dabiiciga. Wuxuu dhaqaalaha dalkan si weyn ugu tiirsan yahay dhanka beeraha oo 80% oo muruqmaalka dalkan ah ayaa ka shaqeeyaan, waxaana lacagta dalkan lagu magacaabaa West African CFA franc, waxaana Burkina Faso lacagtan la wadaagaan 7 dal oo la dhacan galbeedka Afrika. Waa dal leh taariikh qoto dheer iyo raadad hore, waxaana laga helaa 3 goobood oo ka mid ah dhaxalka adduunka oo ay UNESCO aqoonsan tahay. Sidoo kale magaalada labaad ee ugu weyn dalkan ee Bobo Dioulasso waxaa laga helaa oo ku yaala masjidka caanka ah ee Grande Mosque de Bobo Dioulasso. Waa mid ka mid ah masaajidda taariikhiga ee loo dhisay qaabka ilbaxnimadii mandiqada saaxilka, waxaana masjidkan la dhisay 1893. Sidoo kale dalkan gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Sindou waxaa laga helaa mid ka mid ah qaab dhismeedyada dhuleed ee cajiibka ah ee soo jiita dadka u dalxiisa dalkan, waana meesha lagu magacaabo Pics de Sindou.